munaasabadani oo ahayd mid lagu abaalmarinayay shaqaalihii ugu mudnaa 2023 wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo tiradoodu dhammayd 750 shaqaale waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiyaha xigeenka gobolka Sanaaga agaasimayaasha guud ee maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha jaamaca Wilnuuxo iyo Xayaad Naaleeye oo kamid ahayd guddigii soo xulista shaqaalihii la abaalmariyay shaqaalaha aan u qabanay sidii ugu wanaagsaneyd cadaaladda ahayd anagoo u eegaynaa qofka shaqaalaha sanadkii bilowgiisii hawlqabad loo sameeyay qorshe maxaa laga qabsoomay maxaa laga qabsoomay anagoo u eegaynaa ayaan soo xulay macallin ma shaqaalihii kale wasaaraddu inaanay waxba qaban laakiin waxaan isleeyahay waa intii ugu mudnay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah ruucadaagii saxaafadda agaasimaha waaxda dhaqanka Maxamed Xasan Cali Waji iyo suxufi sare Faysal Maxamed Cabdi Farfadle iyo sidoo kale Cali Ruush oo kamid ah hawlwadeennada wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soomaa aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ama aan mutaysto abaalmarinta anigoo muddo badan ka shaqaynayay wasaaradda warfaafinta muddo ku siman ilaa markii lagu dhawaaqay Soomaaliland anigu warfaafinta ayaan ka shaqaynayay horena gabadhaan uga shaqaynayay oo dalkaaga من مشاهد الحرام مدعو بوضع يوسف على اليوم إلى وقت ذا وصافين تنبع لأنه أنك نبدأ باليسين يصنع كل ما تحيي له كما هو أنه الرئيس يوم تدريس يوم كان يتكلم عن الشباب هذا الأكسن أنت كتب عاوة وأنت أصلا فرحصن هاي waxaa ka mid ahay dadka shahaadada qaadanayaan waxaan maleeyaa shahaadada wasaaradda warfaafinta ka qaataan waa tii ugu horeysay muddo badan ma shaqeeyay ilaa la shaqeeyay laakiin shahaadada ugu horeysay ee aan ku farxay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Sanaaga Jaamaca Maxamuud Warsame waxaanu halkaasi hambaliyo u mariyay shaqaalaha la abaalmariyay waxa farxadii ah in uu ka mid yahay dadka la abaal marinayo mid ka mid ah shaqaalaha ugu hawlkarsan ee ka hawlgala gobolka Sanaag anoo ku hadlaya afka gobolka Makhraanti ka ahay in tiimka wasaaradda warfaafinta u jooga gobolka Sanaag ee hogaaminayo ruuga cadaaga bahda warfaafinta isuduwa Maxamuud Saraaf iyo bahda la shaqeysa geesta kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Khalid Jaamac Qodaxa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Shaafici Maxamed Cartan agaasimaha guud ee maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Farxiye Maxamed Cabdiraxmaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Ismaaciil Saleebaan Bawdaxa waxaan isu soo taagay runtii shaqaalaha la abaalmarinayo inaan garaano hambaliyo abaalmarinta ay wasaaraddiini iyo wasiirka wasaaradda iyo guddiga wixii saaray inta la nasiibkoodu siiyay caawaya halka lagu abaalmariyo runtii farxad bay noo tahay inay horteeda ka muuqdaan shahaadooyin aad iyo aad u qurux badan oo fara badan iyo haddii laga duulaya dad loo soo xumay oo wasaaradda
jideeyay xeerka shaqaalaha dawladdu oo sheegaya in shaqaalaha la abaalmariyo sanad kasta la xuso waxqabadkoodii sanadkaa tagay waxaan ku kordhinay taano maadaama wasaaradaha iyo hay'aduhu ay xusayaan dhammaan shaqaalahooda inaan anaguna qabanno tii guud ee qaranka oo markaa runtii dad badan oo jecelahay madasha fadhiya ay sanadkan ku jiri doonaan dadka la xusi doono runtii si guud oo qaranku runtii uu ku odhan doono waad mahadsantihiin hawshaad qaranka u qabateenna runtii waa laidin ogaya shaqaaluhu waa halbowlaha iyo lafdhabarta dhaqaajiya howlmaalmeedka shaqada wasaaradda warfaafintu waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka runtii uu leeyahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan mudane cali xasan maxamed cali mareexaan goore waxaan u hambaliyaynayaa shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gaar ahaan qaybta caawa abaalmarinayo oo mutaystay inay noqdaan sanadkan qaybtii la abaalmarinayay ee dhinacyada kala duwan waxaan leeyahay mabruuq hambaliyo shaqada wanaagsan ee idin gartay ayuu ku hadlay waxaan kaloo hambaliyaynayaa sidii qiimeynaysay muddada dheer soo jirtay oo hawl badani ka gaadhay oo xafladdan ayla soo qabaqaabiyey iyagii madaxdii kalaba ee halkan caawa cabdilowgiiba shaqada ayla soo qabaqaabiyey soo dugorday iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqada fiican aad qabateen